toddobada cunto ee ugu wanaagsan ee carruurta korriimadooda kor u qaadaan. 1. Caanaha waxa ay ka samaysan yihiin kalsiyumka, waxaa ku jira borotiin iyo fitamiin A, kaas oo sare u qaadayo carruurta korriimadooda. Celcelis maalinkii haddii aad cunugaaga siisay 3 galaas oo caanaha, korriimadiisa carruurta kale waa ay ka siyaadi doontaa. 2. Ukuntu waa shay raqiis ah oo qof walbana uu heli karo. Waxay ka qayb qaadataa korriimada carruurta. Waxay ka kooban tahay borotiin aad u weyn. Waxaa ku jira fitamiin D, kalsiyum, fitamiin B12 iyo kuwo kale aad muhiim u ah. 3. Digaaga waxaa ku jira borotiinno aad muhiim u ah, kuwaas oo dhisaya murqaha carruurta, caawinayna carruurta in ay noqdaan kuwo ka wanaagsan kuwa asaagooda. 4. Bocorka lagu kariyo caanaha waxa uu muhiim u yahay in carruurta jirkooda culays ay yeeshaan ama miisaankooda sare u qaadmo. 5. Digirta waxaa ku jira fitamiinno aad u fara badan. Waxaa ku jira fiber, carbonis, borotiin iyo kuwo kale, kuwaasoo dhammaan ka qayb qaadanaya in carruurta lafahoodu ay adkaadaan. 6. Fiishka ama kalluunka waxa uu ka qayb qaataa korriimada carruurta dhanka dhererka ama inuu dheeraado. Waxaa ku jira fitamiin D iyo borotiinno aad u fara badan. Ugu dambayntii, number 7 waa khudaarta iyo khudradda. Waxaa ku jira fitamiinno aad u fara badan, waxaana ugu muhiimsan khudaarta sida mooska, liimaha, karootada, tufaaxa iyo kuwo kale. Dhammaan waxaa laga helaa fitamiin C.